intiina dhegaysanaysaa waxaanu dileenahay mar kale kulan wanaagsan waa aniga oo ah xasan maxamed yuusuf iyo yuusuf cismaan cabdille yuusuf shaacir oo halkan idinku soo gudbin doonaa maansadii ama silsiladii caanka ahayd ee la odhan jiray siinley oo soo baxday sanadkii 1973 bilowgiisii abwaano badanina ay ka qayb qaateen kuwaas oo kala ahaa cabdi aadan xaad oo cabdiqays loo yaqaano maxamed ibraahim warsame hadraawi iyo cali salabaan bideeh allaha u naxariistay cali salabaan maxamed xaaji aadan axmed afqaloo maxamed xaashi dhamac gaariye siciid saalax axmed maxamed cabdilaahi riiraash yuusuf jaamac oo yuusuf canfar lagu naanayseeyey iyo ninka la odhan jiray axmed maxamuud iyo weliba abwaano kaleeto ugu yaraan 12 hal abuur ayaa iyagu ka qayb qaatay silsiladan loo odhan jiray siinley sida ay ku bilaabantay iyo markii ay bilaabantay maansadii ugu horreysay ama heestii ugu horreysay ay ku bilaabantay waa kan yuusuf cismaan cabdille yuusuf shaacir oo inoo soo gudbinaya bismillaah waa mahadsan xasan siinley waxaan odhan karaa ujeeddo cad ama abaar sugan oo laga hadlayaa may jirin waxay ahayd jaantaar rogan ujeeddooyin badan ayaa loo fasishay wakhtiyadii ay soo baxday waddani dhinac jacayla siyaasad iyo qaybta ugu weyn oo ahayd dhoolatus xagga af soomaaliga ah sababaha aanay ujeeddo u lahayn waxa weeye marka horeba si lama filaana ayay ku dhalatay marka xiga sarbeeb bay ahayd marka xiga ragga alifay ama curiyey way kala fogaayeenoo qaar waxay joogeen xamar qaarna waxay joogeen jabuuti markaa sidaas baa loo odhan karaa siinley may lahayn ujeeddo cad sida aad ka arki doonto marka la dhex galo heesaha laba ninoo dhinac u wada safan haddana marka dambe iska soo horjeesanaya rag kaloo qardajeexa nin laba ninoo ishaysta isaguna sii dhaliilayo oo le idinkaa meesha qarribay sababahaasoo dhan baa kutusaya inaanay abaar sugan siinley lahayn yuusuf sida aad u sheegtay arrintoona haba noqoto laakiin haddana waxaa jiray in ay si gaara u taabanaysay dareenkii siyaasiga ahaa ee xilligaasi taagnaa khaasatan kii ku saabsanaa maamulkii warkaa waddanka ka jiray oo aada moodaysay isaga qudhiisu inuu si gaara uga diday dabcan marka dadka silsiladan wax kala socday xilligaas ay soo baxday iyo dadka dib ka maqlayba dareenka ugu weyn ee ay qabaan waxa weeyaan in ay ka mid tahay siinley meelihii mafaatiixdii ugu horreysay ee siyaasadda taliskii markaa jiray abaartay ama lagu furay qaybtii labaadna silsiladii caanka ahayd ee yaabka lahayd ee deelley iyo dabkii ay horisay ay qaadatay markaas miyaan ujeeddada ugu weyn ee lagala soo dhex bixi karaa aanay halka ahayn haba lays dhaliilo oo abwaanada silsiladda kasoo qaba hays dhaliilaan arrintaas maxaad ka leedahay waxaan horta way jirtaa taasi oo maamulkii waktigaa jiray uu ka dido oo waabu mamnuucay oo may ahayn wax sharciya si kootarabaanaba la isu gaadhsiin jiray sida ay sheegeen hal abuuradii curiyeyna waxaa fasiri jiray oo ujeeddo u samayn jiray hadba bulshada dadweynaha fasiri jiray marka waan sheegay oo qayb siyaasiya way lahayd qayb wadaniya way lahayd jacayl way lahayd dhoolatus xagga af soomaaliga oo raggoo markaa dhalinyaro ahaa way lahayd ujeeddo badan bay ahayd laakiin bulshadii waktigaa joogtay waxa ugu weynay u fasirsheen waxay ahayd uun inay nimankii askarta ahaa ee waktigaa maamulka qabsaday ay bahashani la hadlayso oo durayso waa tahay yuusuf adigoo bal aada u mahadsan waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo saan maqlay heese hordhacu ah oo siinley ka horreeyo la istixraacayay oo la odhan karo miftaax bay ahaayeen ma jiran iyagu ha way jireen horta waxaa miftaax u ahaayoo furay sida la odhan karo malaa isaguba des ma ahayn siinley fure deelley iyadu ku talagal bay ku furantay oo wax laysla ogyahay bay ahayd laakiin siinleydu iyadu ku talagal may lahayn laakiin heesta ugu horreysay waxa uun ay noqotay markii dambe heestii hadraawiye la odhan jiray saxarla ama waan soo socdaaye kowdhe laakiin waxaa jiray heese ka horreeyey oo sabab u noqday ama ahaa albaabka iyo jidka loo marayo in la istixraaco waxaana ay ahayd sababtaasi
cabdi aadan xaad cabdiqays ayaa 1970 hees tiriyey. heestaa waxaa la yidhahdaa aakhiroy xaggee baad naga xigtaa. waa markaynu doonayno albaabkii u horreeyey siinley laga galay. heestaas wuxuu yidhi cabdiqays, maalinta xanuunka iyo xaqa mawdku soo galo xabaasha iyo iilkaan kugu soo xasuustaa, xidigaha cirkee sare inaad xubin ka mida tahay, inaad hoos u xulan tahay, dhulka xero ku leedahay, maanu helin xogtaadii, aakhirooy xaggee baad naga xigtaa. in la xaabinayo adduunyadu xayiran tahay, aan xawd la reebayn waa xarafka eebe, inaad xurarcayn iyo janno iyo xaree tahay, marra xolada naar iyo xanuun iyo dhibuun tahay, xijiyay ku maqalaye, aakhirooy xaggee baad naga xigtaa. inta gabadh xishootiyo wiil xariira kugu maqan ama geesi kugu xidhan, xaddi way ka badatee, inaad xaajo adag iyo xisaab leeday maqalaye, xumaan iyo samaanta xaaladay ku noolyihiin maanu helin xogtoodii, aakhirooy xaggee baad naga xigtaa. haye heestaas oo madax bannaan buu cabdiqays tiriyey. bulshadii markay heestaasi soo gaadhay ama soo baxday markiiba waxaa loo fasishay inuu la hadlaayo taliskii la hadlayo cabdiqays aanu aakhire raadinaynin. uu leeyahay war waatanoo meesha askar baa qabsatay, cadaaladii iyo xorriyaddii iyo sinaantii xaggee bay ka dhaceena qabteen. laakiin cabdiqays anigu waan daawaday iyadoo nimankii sinlida curiye laysu keenay mar jabuuti oo cajalad fiidyaa. cabdiqays wuxuu leeyahay anigu siyaasad ugamaan jeedin heestaasi, waxaan markii hore tiriyay hees ka horreysay odhan jirtay adduunya xaalkaaba iyo riwaayad saasa ku saabsanayd. marka waxay iga ahayd un war bal aakhirana dadka ogeysiyo iyadana mar haddaad adduunyadii ka hadashay bal aakhirana taabo. aniga ujeedadu saasay ahayd buu, laakiin waxaa loo fasishay un inay mawduuc siyaasi ah ay tahay. si kastaba ha ahaatee cabdiqaysna wuxuu doonaha uga jeeday ee waxaa ka soo jawaabay heestii maxamed ibraahim warsame hadraawi. heesta la yidhaahdo arraxmaan ayuu tiriyey. hadraawi laftiisu isagoo ka sheekaynayaan maqlo wuxuu leeyahay, aniga laftaydu waxaan doonayay inaan maamulkii waktigaa jiray si dadban ugu sheego aan u maago, dabeetana waddadii aan usii marayay ay halkan noqoto. wuxuu yidhi hadraawina, ergaduu fariintiiyo ku adkeeyey heestee igmadaanu kulanno, looxii ilhaankan sida uurku baallaha indhahayga saaro, warku waa ammaane, adna maxamed moogow aakhira halkay tahay cabdiqays ugeysi. ayadaha qur-aanka iyo arraxmaan siday tidhi, hadalkii ilaahay ruuxii islaamhi sida uu aqoonsaday, waa ooman hawdo waa guri abeesoo edab weeyo hoosoo abataqan ku yaallo, waa iil madowoo rabbigay addoomaha kaga aargutaayo, waxaa laga arooraa iridaha xabaashoo abban maayo ruuxii qabri lagu adkeeyo. marra ogadeeniyo waa oosha guudkoo, waa beer udgoon iyo duni wada ilaysiya, waa ceel irmaan iyo tugag wada ordaayo, ila wada xareedoo lagu oombaxaayo, naftu eegma sugashada ashqaraar ka qaado, 70 ooriyod lala aqalgalaayo, rabbigay addoomaha ku abaal marshaayo, dhibta lagu ilaawaa. afhayaha barbaartow, ababshaha dhallaankow, taliyaha abwaankow, aabbaha jacaylkow. adigaan ogeyn baan uurkaaga baadho, ulajeedadaadaan ka arkaa dhul dheeroo, arrintaadu qaysow afgobaati weeyaan. aakhira cabdow way aasan tahay, iilkay jirtaa, aakhira cabdow ambantoo luntoo ururka iyo laxaa awrkii cirkay ku ag xidhan tahe, ish dadku yuu ku eedayn, ha dhex gelin umuuraha, isha xidho afkana dhow, arag maqal warkana od. labadaa heesood siinley kama mid ahayn, laakiin waxay ahaayeen kuwii tixraaca keenay u noqday sabab inay siinley soo baxdo. oo cabdiqays baa kiyo jararaaciya hadraawi heestii saxarla markaa ka daba qaatay. dabcan heestaa saxarla waxay ku jirtay riwaayadii la odhan jiray aqoon iyo afgarad oo curyaheedu ahaa maxamed ibraahim warsame hadraawi. marka cabdi heestaas wuu tixraacay isagoo de u aaneynaya intiisii hore hadraawi ka jawaabay aakhir xagee laga xigta ayuu tan haddana isaguna markaa tixraacay. labadaa heesood markii la tiriyey waxaa la wada joogay hore labadaba xamar baa la wada joogay. cabdiqays iyo hadraawi xamar bay joogay. intaasi markay dhacday cabdiqays uu ka yimi xamaro wuxuu tegey jabuuti. muddo ka bacdi baa riwaayadan aqoon iyo afgarad ay soo baxday. cajaladihii baa waxay ugu tageen cabdiqays heesuu ku jireen jabuuti. cabdiqays heesihii dabeetana wuu baadho heestan saxarla ama waan soo socdaa kowdhe ayuu kala soo baxday. heestaas buu ka jawaabay. saxarli waxay leedahay,
kursinaan dharaartii la sargooyey dunidee rabbigay sameeyey cirka sare u taagay xidigaha siraatiyo dayaxsoodi meeriyo lagu sugay cadceedee sagalkiiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaacee dhulka gogol la seexdiyo saba lagu nagaadiyo laga dhigay sindadabkaee buuraha la saare dhirta samayda ciidiyo salka loogu joojiyey saddexlaabad iyo webi lagu yidhi sabeeye dabadeed la saanyey qofba meel la siiyey saldhiggeedu qaydnaa cidi uma sinaynoo dadku ruux sabooloo saranseer ku raagiyo guryo sama mid yaalloo sid ka dhalay ku maaloo helay seerma weydiyo laba kala sadroon baa subax noolba jooga salfudaydku xaawuu jannadii ka saaree ruuxaad sugaysoo maqan waa la saadshaa sahan waa la dhowraa ha sahwiin ha salalin sarka dhaban ha noqonin ha saluugi qaybaha qalin baa saxeexay waxaan saatir kuu qorin ha u suul dhabaalayn kala saar run iyo been kala garo sir iyo caad in salaadu weligeed kala tahay sunniyo faran u ogow saxiyo maan inaad saamajiidiyo sanqartirasho kala daah naf jacayl sawaaboo sanka kuu daloosho kuu sudhay hoggaanbaad u sidaa maqaarkee ha ku daba saqlaysee ha u gaabin seetada sogsogtiyo cadaadiya ha ku saydhin laamaha waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weligaa saxarlay ha fududaan taasay ahayd saxarli taasay ahayd haye cabdiqays markaa taas buu ka soo jawaabay heesta la yidhaahdo suuban dadka qaarre u yaqaano ninka soo socdow joog waxaynu iminkana isku dayanaa jawaabtii cabdiqays waa tahay ka bixiyey wuxuu idhi ina walanwalow samir walanwal waa naanay sadraawi aabihii ina walanwalow samir haweenkaysa seegtee 8 nabar adoo qaba waa taa tii 9aad seedaha ku goysay saaxiib hadraawow maxaan kuu sameeyaa seefuhu ku jiidhe gabadhii ku sidataan sabadii jabuutiye xeebaha sintoodii iyadoo nin sare qabo subax aanu kulanoo sababtiina caashaqa markii aan su'aal idhi waxay suuban leedahay hadba saacan joogaan tukadaa salaadee adoo saba wanaag yaal ruuxa saylac kaa jira looma sacab garaacee sifaheedu wuxuu yahay siri way jirtaa kowdhe sama lama hayee laba dheh waxay saxarli kugu tidhi ninka soo socdow joog waxaad soo sidana celi anigu waan sal fudude waxay suuban leedahay wax markii la sugi jiray adduunyadii ka socotoo soo ratii hortaada iyo sacabkaaga taallaa sadna ugu wanaagsane sifaheedu wuxuu yahay samir wuu dhintee kowdhi sama lama hayee laba dheh waxay saxarle kugu tidhi ninka soo socdow joog waxaad soo sidana celi anigu waan sal fudude waxay suuban leedahay safar meel fog tagay iyo lama dhowro socoto waa sabankii beentoo wacad laysa siiyo runi way sal guurtee sifaheedu wuxuu yahay sabool waa nace kowdhi saxal waa madhniya laba dheh waxay saxarle kugu tidhi ninka soo socdow joog waxaad soo sidana celi anigu waa salfudude ya oo saxarladii buu soo gudeelaya warkii baan kasoo tabiyo waxay leedahay aniga waxba hay soo soconin meeshaad iska joog horta halkay bahasho ka siraada halkaasay ahay yaa markaas saddexeeyey waxaa saddexeeyey horta iyagiiba haddana isku soo noqday waa tahay hadraawi baa markii jawaabtii cabdiqays xamar ugu tagtay haddana mar labaad ku soo noqday maxay ahayd heestu sidii qabax heesta la soo jiray wuxuu yidhi saaxiibkay qaysow marka hore salaan guud marka xiga sadkaagiiyo waxa aad ku sugan tahay waa inaad nasiisaa marka xiga silsiladii murtidaadii soocnayd subciyoo dhammeeyo solay oo bisleeyoo dabadeedna siistaye saaxiibma nabadba sumadeedu waxay tahay roob saaka da-ay baa sarka dhaban la yimi oo anna seexan maayee saaxiibma nabadba sumadeedu waxay tahay heestaydu waa siin sidig weeye dihinoo waxaa loo saddexa maray dadka hawsinaatoo ruuxii saboolhi caanaha ha saydheen saaxiibma nabadba sumadeedu waxay tahay heestaydu waa siin waa suuriye xidid oo saxar laga ilaashoo laga sugay bidhiiqoo la saluugi maayee saaxiibma nabadba sumadeedu waxay tahay saxan saxa ma roobba seed geel ma helibba saka adhi ma xoolaa fardhaxaad ma suulba sakaraad ma loolba biyo sare u jeedaa halka ay saldhigayaan saxar raacay weydii sumadeedu waxay tahay cabdiyow sabeenii waysu malxadeenoo midihaysa sidatee 3 dhalay warkoodiiyo waxay saaka joogaan xogta aan ku siiyo sarta kaaga jeexee saaxiibma nabadba sumadeedu waxay tahay sheekadu salfududaan ama socodka qaarkii kuma samafalayso cabdiyow ka saan weyn saafka aad u goyso guban iyo saraar bay suxullada la gaadho sinta waxay ku haysaa subulaha galbeedo ninka saylac joogaa saqadheeda mooye ma yaqaan sirteedo orgi saraara weynoo sogoboo dhufaan iyo inay tahay risiyoon kala saari maaye haddii looga sacabtamo salbihii guraacaneed salalka ma baxaysee ha la boodi seeftee saaxiibma nabadba waa hagaag qarbaad shafaysaa subadeedu waxay tahay
inta waranka sooyaan samaydii ka maqan tahay inta laba su'aalood sakaaluhu dhex yaaliin inaan dunida saabka iyo laga saarin tiirkoo qoraxdana siraadka iyo laga siibin nuurkoo la afuufin suurkaan rabbigay ka sugaya waan gartay sumadeedu waxay tahay ninka ootay seeraha saxarlana ku guursaday haddii uu nin sare yahay aan laga sad qaadayn saadaasha mooye si kalaan ka yeelaa suuroobi mayso aniguna sidaydaba sodohaha rag kale qaba kuma toobad seege amaan waayo mid madax bannaan sumadeedu waxay tahay sidee qabax 5 maalmood sahay loogu talagalay 30 laguma gaadhe hadal lama sugnaadee saaxiibkay qayso waxa suuban leedahay saca faarsanacay oo 9 bari adoo qaday samsam iyo bulaala saarkaagu ka hayn saxray ma kulata waan gartay ridadii labaadna halka ayuu hadraawi soo dhigay oo waxaad ka muuqataa inuu leeyahay war arrintaadii waa la siyaasadeeyay bal wax iska hubso oo cabdo casida cabdiqays marka dambe ogaan doono oo heesiisa dambe ka muuqata ka garaabayo wuxuu leeyahay bal wax iska hubso cabdiqays markii tahay soo gaadhay cabdiqaysna waa kusoo noqday mar labaad wuxuu yidhi saaxiib hadraawow inkastay sideedaba safar tahay adduunyadu lagu sugayo geerida saaka waa ku noolahay idinkana sidoo kale sama inaad ku waartaan saatir baan baryayna sargooye aan dhaafe murtidii aad soocdee sidiqaba xub bixisiyo helay sadarradaadoo saxayo u guddoome waan kula socdaa garo anna subaxan dheerayn awrkeenni sulubaan surradda iyo loolkiiyo soo saaray dhigahee qabayuu ku siigni sargooye aan dhaafe sasabada dhallaankee suulcayn iyo dhagdheerle markaan qaydka sidaniyo saman layna bari jiray marrun baa salkeedii mise sabiga un baa lagu seexin jiray waan gartay ase kuba su'aale waxay saxarri tidhi iyo warkuun baan ku siiyey hadmaan seefta qaatay kugu gooyey seedaha intaa nabarku kugu siqin ayaan kaa samrinaye mana toobad seegiyo 3 caasha kugu idhi hadmaan saanka weyniyo sheekada u xidhay saab sargooye aan dhaafe waxay saxarle kugu tidhi hayla simin sax kugu nacay samsam iyo bulaale muddada aan ku sugayay samirkaa badnaado waqtiga ila siibtoo ina kala sarseere waan kula socdaa garo sargooye aan dhaafee saaxiibow haddaad tidhi seed geelma helibaa hadda saanta kaba haba rag baa sabanaquutaye waa su'aal jawaab lehe sanadkaa miyaad garan samaalow haddaad tidhi saka adhi maxoolaa ogoobay sabool madhan soofna way u noqotaa waa jawaab su'aal lehe ruuxa sacabku madhan yahay miyaan kii sabeen lahay sabqadaba ka roonay subanow haddaad tidhi sakaraad maheesbaa ogow sawdka dhaantada iyo salowga taa haba codkeennaa sameeyo midba saacad weeye yay ku sinaadeen waan kula socdaa garo waxaan sugayay sheekada inaad sare u qaado soodintii hawaas iyo iimay la socotee subuluhuna waa maxay sulkaaba gaadhi midna sadarka weeye sararaha warkaygee suuban waa nin naagtii sidan hubana caashaqu wuu kugu samaysmoo kaasal guuri maaye waxba soorta ha u nicin sakaraadna ha u noqon inaga is ogi haddaad samirka diidana suubaala iyo hadal saaka kuma helayside sida quraad ku dhaxashaa ama ay ku sugan tahay waa adoo u suuqmoo dhididkana u saydho salla uga dulboodoo surmi ugu badheedho gaajo ugu sahwiyo suxulka ugu rooro soorka iyo bilaawuhu jidhkaaga saafoo dhiiggaagu saydhmoo surka inaad waxgoysiyo inaad sababto taada aan saddexaynin weeyaan waa gartay waa halkaas sifada ugu weyn laga soo qaatay adigoo u dagaalama soo banaa ay ahayd uun xorriyadii adigoo u dagaalama dee rimanba haysto gacanta ku hayo u taliyo xukume barya lagugu siin maaye lagugu siin maaye haddaad u dagaalamayso dhibaato mudanayso dee waa meesheeda waa shaad ku heli karaysa waan gartay waa halkay sadka ka qaaday xukuumadda waa kula socdaa garo midna suxulka weeye uu sahanku sheegay ninka qabaa siduu yahay suuraddu u dhigan yahay balaan kuu sifeeye waa mid sarara weyn oo seediisu adagto saaxiibo badan iyo 9 aan rabaysto seef iyo itaalo sarsarkiisa aadmiga surinka ugu gooyay sidaa weeye xaaji ma ku saaraysa waan gartay waa ninkii imtixaanka ahaa afarta markii la isdhaafsaday oo aad ka muuqato in bahashu wali iyaga laftoodu aan isla haysan oo ninba dhina kalena fog yihiin baashan sarbeeb tahay lana baqayo kacaankan waqtigaa dee seeftiisa ay kulushahay loo moogtahay ayaa waxa hal abuurkii kale dee libaashi dadka lagama lehe oo waxaa qadiyada guudi la soo dhaxgal hal abuurkii kale soo dhaxgal la wadaagay bahash waxa ugu soo horeeyay ninka la yiraahdo Cali Saleebaan Bidi Allah yarxame uu dhintay Xasan Maxamed uu dhintay Allah yarxame hees isaga laftiisa ka muuqata inuu wardoon yahayo wixii fahmay ayo la ku curiyayba waa kuwan deen baqar shafaye وليه وربل وحن سدا وجهدان سياسة با مشاعيل با الأرنكا نو صح أو موتية هس أي كم وقته أيو تري وحو هستي ساكو يري وحو يري
siigada dhacaysiyo sanqaraha baxaayiyo buuqiyo sawaxan siigada dhacaysiyo sanqaraha baxaayiyo heesta siinka joogtiyo buuqiyo sawaxanada inay sanadu caan tahay 3 iyo 7 sifafaalaheedaba sixi waaye anigu iyo saad yar hemooda xaajadu sirkacana sawtan laysa seegay la afeeyay seefaha ee warankii sooyaan loo doonay samaydii sawtan aanay culimadu seexanayn habeenkii rabow saawaha sida roon adaa ogi naga samata saaro noo sahal umuuraha waan gartay sawtan samir la dhaafee dadkii saaca raacee barba geesu saydhmee saaxiibadii iswaayeen ee sahanka loo diray biyo sare u kacayee tima sacab ku yaalana soo sheegay aadmigu saba adhigu daaqana samadaaba laga heli waan gartay saaxibaad raawow adaa saaka joogee sidigtaa saddexa maran satiyada fijaan kale sooryada aad qaaday qofna kugu saluugee saylac kaaga soo yidhi ninka soo socdow noqo bal sidaa ujeedaan warka saafa oo qala ma jacaylku saaqoo cabdi kugu safaadaa ma siraan la dhaadayn oon cidi sarrifin iyo war kaloo ku siiya xaalku waa maqaar saar arrintaas sawaabteen dadku miyuu u siman yahay ma sabool dantiisba bal sife xogtiina sarar loogu riday ciid siin ma moodo doqontu iyo sadbursiye weeye sabiga iyo maangaab kala saari maayaan murtidaa la soocay sakaraha la geliyee saabka a u yeesheen warka aan ka siibiyey siday aniga ila tahay sababtaadoo nin kale cuno silac weeye noloshuye ragga jiidhku suuqmiyo kuwa ootay seeraha wadka way u siman yihiin suurtuna ha yeedhee saxarloo mid kale qabo saba lagu nagaadiyo gacansaar ma joogtee saa dambe maxay noqon dhaaxaynu samee waxalina halkaa ood moodo inuu dhinac ka yara raacsan yahay raawna dhinac ka yarsa haddana waxna warka ideeqsiidii arrinkaasna waa aad moodo waan gartay halkaa calina mariyey halkaasna cali saleebaan buu cali saleebaan waan gartay halkaa markay maraysay waxaa soo galay ninka la yidhaahdo xaaji aadan afqalo allah yarxam isna uu dhintay oo markaa daadiisa lagu qiyaasay 120 inay weliba dhaaftay waa markii uu dhintay ayuu intaa ahaa markii uu dhintay oo ahayd qiyaasii dhowr iyo 8 ahayd markaaba dee nin weyn ayuu ahaa 100 iyo dee jarjar buu markaaba ahaa xaaji aadan waxaan filayaa isna waqti aanu xamar joogay raggan badankoodu jaamacaddii la fahole ayay ka hawlgelayeen ayay joogeen xaaji aadan sidii cali isagu ma aha cali wardoon buu ahaa dhexdhexaadna wuu iska ahaa xaaji aadan isagu waa bareersan oo wuxuu la safan yahay hadraawi wuxuu isagu eedaynaya cabdiqays oo leeyahay nin wax fahamsanba ma tihid oo isaga arrintii in jabuuti la xoreeyo ayuu isagu ka naasayaa sheekada halkaasuu isagu ka fadgudiyo arrinta waxay istahay dabeetana masafo uu bixiyey saluugla ayuu isna tiri masafadu waa bad ka duwan badii hore ay kasii hore ku saabsanaayeen oo qaab laba dhaca oo tii hore bay xamilka qaabka jiiftada midho ay ka yar duwan tahay wuxuu yidhi cabdo way saseegteen saaxiibkaa hadraawiye sababtana adaalaan garan siduu u jeeday faalladii sirta ahayd si kalaad u fahantee taladeenna siban baad suuldhabaale moodee sogorda iyo caddaankaad kala saari weydee bishiioo 3 baa 30 kula ahaatae sagal baa daruur mooday saakaba da'aayee surwaalku lahaa gabaygu adigaa ka saare mariibad kala baxday waa sixirka oo kale sixun wuxuu tilmaamee sufahada iyo doqontaa dariiq uga samaysee su'aal adiga kaa weyn sahal looma celiyee adigaan dawada sidan maasha lama saraaye nin shimbirasaba ayaa waraf kama sanqariye hashii aan sadkeed gaadhin sidig laguma sheege lama socotid suguliya saaxiibadiisii sidii subaga loo helay salow baa bilowday haddii timaha laga sugo madaxu saxar ma qariye saad u maqashay mooye dhakadii baa la seemay waa sixinta sharafkeeda soogto inay dhammaatee saryankiiba waa halis sida maanta joogtay waa tahay ninkii culuqa siday baa sadbursiya doonaye saxarlay ha fududaan sidaad mooday maahe sideed iyo heeladu waa wax kaa sokeeye sooyaanka aad tidhi marna samay ma waayine ka sidaana ma hurdoo samajeesta weeye waa tahay ma seexane cambara sagal samaday u boodiyey sahankeedu wuxuu gaadhay saxalka iyo mariiqee subaxna walba waxaa jooga saacad qura ma moogini samrina maysa jaray suuban u ciyaartee siciide iyo deeqna sacadku way ka boodiyey wuxuu soo sidaa odaygu waa siyaaqadoodii siinka iyo saadkaad kala saari weyde ninka soo socdaa celin sarbeed weeye heestuy wuu soo socdaa kowde waxna wuu sidaa labadhe saxarlaay ha fududaan sidaad mooday maahe halkaasuu kaga baxay ayuu mariyey waa hagaag yaa ku xigay waxaa soo galay maxamed xaashi dhama waa gaariye gaariye waqtigaa wuxuu joogaa magaalada burco ee gobolka togdheer oo macallin ka yahay laakiin sida ka muuqata waqti aan fogeyn buu ka soo sadcaalay
xagga la foole oo markii hore isna ragga ah ayuu kamid ahaa waan gartay gaariye isaguna arrintiisu waa uun wardoon iyo dhexdhexaadkii oo weli dhinacna kuma cadda marna waxaa soonaysaa hadraawi buu ku yar dhow yahay marna waxaa soonaysaa cabdiqays buu ka yar shaabahaya waan gartay wuxuu yidhi heestiisana wuxuu bixiyey marka hore salaan guud wuxuu yidhi marka hore salaan guud rabisay makaahay waa tahay marka xiga sabeenii midihaysa sidatee saddexdii hadhee dhalay jee saboole maaloo ku sangaaguroodaa xalay socoto baahani marti ugu safteenoo mid siniin lahayd baa dogob loogu sulayoo ninba waax la siiyo labaasaa ka joogeen saaxiib ma nabadba waxay suuban leedahay ninkaas soo socdaa mee muxuu soo sidaa sheeg saaxiib hadraawow duurkiiyo sarmaantii saaciyo ugbaadkii sogsogtiiyo galoolkii diir lagu salliday baa laamiisa riigtoo waa soobir caawe samaydaaban shidan laa sahankaan u diray ee sanadahan maqnaabaa saka laygu sheegay adaa soo jireenahe masug baad leedahay malaa suuban maqashayee way siiban tahay oo weli waa sideedii saaxiib hadraawow waa erey su'aalahe candhasaab ma dararaa jinow geel masixinbaa sakaraad ma geeraa alla bari masooriyaa nin la sigay ma nabadgalay adoo deercad soofshoo sake lagugu leeyahay suuradaha ka baadho maqaarsaar ma bixin lay sagaal adhiya ruuxliya anoo subaga daadshaa ma sinaan karaynaa waxay suuban leedahay suuraaf miyaanahay salfudaydku waa maxay naf jacayl sawaabaan sahwi daynahaynee duqisaba wanaagiil wuu soo socdaayoo seerihiisa kii galay dhab u seexan maayee saylac waa tallaabee cirka sare hadduu dego saddex magac ilaahay seefta way dul taallaa saaxiib hadraawow ninka saxarla guursaday maseedaad ka dhigata waxay suuban leedahay ninka maydka sarayo u damqan maysa saantuyo waxa iga sargooye ah hadda saaqi waa fool anigawsa tiriyo saa dambuu ku buuxaa intaa waranka sooyaan ha iska samay la'aadee saaxiib ma nabadba waan gartay halkaas buu gaariyana waa maxaad xaashi dhamac haye waxaad moodaa inuu gaariye kulad qabsaday hadraawi dhinacan cabdiqays uu kasoo yaro horjeedo oo uu leeyahay in saxarla ninka guursaday ma gaari hadraawi masooda ka dhiganaysa iyo dhinacna waa kan le waxay suuban leedahay salfudeedku waa maxay suraaf miyaana oo xaggana waxay moodaan cabdiqays haye kala socdo waa mansabi markaas lixaad haye oo bahashiis waxaad moodaa inay ujeeda badan tahay laakiin waxaad moodaa inuu hadraawi kulad qabsaday jawaabna uu ka sugayo hadraawi laakiin jawaab hadraawi kama helin waxa usoo jawaabay nin kaloo la yidhahdo Siciid Saalax Axmed oo waqtigaasna joogay la foolay waan gartay oo waxa macallimiinta halka joogtay haye waa weyn aan la wada way Siciid Saalax haye taas la yidhahdo garsoor ayuu Siciidna ku soo galay isagoo gaariye la hadlaya kuna eedeynaya inuu cabdiqays ka gardaray la safan yahay cabdiqays buu la ku eedeeyay la safan yahay Siciid waan gartay oo wuxuu leeyahay cabdiqays ba soo raacday wuxuu yiri Siciidna same maxamed xaashow soodintii afgooyaan aniga iyo safkeenii ka soo salaano sabadii tog dheer baan kugu badbaashay waa adigii sadcaale maxaad saaka joog haye dabadeedna sawdkii heestaadii socnayd nagu soo sinaato saaxiib gudoonay silsiladii taxlayd iyo si leeydi meertadeen ninba saab u galiyaad adna soo sargoyso saansayahaagii si kastaba u garanay subana hadraawina waxa uu ku sugan yahay warka aan ku siiyay mawjada sareetu kala saydhayaayo adduunyada sirteedu sahdi ugu jiraayo Soomaaliya xumaan iyo saxalada wareegu kala soocayaayo murtibuu u soo moosan qad kale ma aadee aniga sokeeyo xaalkiina sugaye sida arintu ila tahay wuxuu hadraawi waska mashquulo waa waxa kale ku jiraaye aniga labada yar firaaqa leh aniga aan ku jawaabteeda ma qabo aniga sokeeyo xaalkiina sugaye sida arintu ila tahay sida arintu ila tahay saaxiib baligo hoosadar dhaafi maayo balse waxan kayla maqan saldhigeedu wuxuu yahay gaariyow sideedaba rag haddaad la socotay arrimo isku sheega laba uma sinaatee garta waa la saayaa xaqa waa la sooraa sida cali saleebaan kii quma la siiya cali waa ka hadraawi siiyay saas isagu leeyahay saldhigeedu wuxuu yahay waa godobsan dahan iyo surya lama filaanee sida taal bishii hore waa saan wacnayde sawdiga sahweeye salaalay maraya surmaaqta yeeshay arrimaha sirgacayay sakaleeshay xaajada baariye sidaata saldhigeedu wuxuu yahay saxarliya danteedii ama socodka kowlaba
xaalkaa tirtiis iyo sifafaalihiisii saaxiib ogeyda la wareegnay saymaha sikiir baan u yeelo nin kalaan la socon baan ugu sacabtumaya kaasisan mayno saldhigeedu wuxuu yahay bal u fiirsa sadarrada ninka aad la safan tahay siduu sheegay maaha soorta taad u orodee buuraha sintoodi iyo salla aad u fuushee dhididkana u saydhaa sadka ugu wanaagsan saldhigeedu wuxuu yahay bal u fiirsa sadarrada ninka aad la safan tahay adduunyadu siduu yidhi xuma kuma sugnaanoo samirmuu dhammaanoo ruuxii saboolee aad sidig wadaagtaan saranseer markaa manin laguma seego saa laguma dhaafe saldhigeedu wuxuu yahay waa yeel sidiisaba waa loo saraayo arrin looma saafee sheekada ha seegine saxarada la guursaday xeebaha sintoodi iyo sirjigiisa joogtana waa saamigiisoo sida uu ka yeelaba isagaa ka sugaya adoo sabab bannaan yaal buur lama salooshee dhowrkii su'aalood aan tibaax ku siiye salfudaydku waa kii ducaalaba sifeeye sidaa garo saldhigeedu wuxuu yahay ma og tahay sabeerii waa saqa dhagaysto saddex weeye weliyo marra may saroobini inkastaanay sabad iyo suudinteenna daaqayn mid waliba siday tahay waa lala socdaayoo sumad baa ku taaloo sinjiu abaadini sumalka iyo laxdii dhalaa lagu soocanaya saldhigeedu wuxuu yahay ma og tahay sabeerii waa saqa dhagaysto saddex weeye weliyo marra may saroobini inkastaanay sabad iyo suudinteenna daaqayn mid waliba siday tahay waa lala socdaayoo sumad baa ku taaloo sinjimuu abaadini sumalka iyo laxdii dhalaa lagu soocanaya waa hagaag saldhigeedu wuxuu yahay ninka geel suryada hawd ama saba nugaaleed ama sool qadaadeed ramadkii ku soofshee gaarowday ugu simay sifaarkiina uu baxay canaha barhsaydhee qotoosaday sibraarada doob saraara weyn iyo sirsir ba'aan hadduu yahay inuu jinaygu sixin yahay sidaa ma ogsoon tahay saldhigeedu wuxuu yahay soomalhaad abaareed beel saxal ku raagoo sahankeedii uu yimi soo helay tu roob loo laansaaray jabadkii geedi sayr maweydaa saanqaadka awrt iyo socodkaad ka garataa bele laguma seexdee saadaashu waa door saldhigeedu wuxuu yahay ninka saylac kaa jira ama sabada waahen ee aad sugaysaa seeftiisu waa maar seeftiisu waa maar waa saawir liido ninkay seedu xoog tahay muruquna sar adag yahay meel kama sarayso saddex walle anaan marin sida loo ogsoon yahay kama samata baxayo taladu ku sheega waan gartay waxba ka cilmayso saldhigeedu wuxuu yahay doonidaba laba seeb aan geesu wada socon kuma saama qaado sahal uma karaartee adoo jooga subax hore fiid looma seexdee saaqadaa dhalaysay uu sadkeedu dhow yahay sida aad u leedahay noqon karin sargooye saldhigeedu wuxuu yahay adaaseen cadaayaha baltibaaxi siiyo saddex jirku ma ciidma sareebadu ma ceebba sarar ari ma feenba sujuuruhu ma toosba ufadoo ku saaqdiya saxansaxa udgoon iyo daruurtoo sinaatana miyaan roob ka soo socon sanadii cabanaya maalmii saqanaya su-aashoodu waxay tahay saxashadu ma dheefba suuxdimu ma gamaba sumbayguna ma dheregba saldhigeedu wuxuu yahay u dambayna saaxiib waxaad suuban leedahay ninba siduu u eegaa waayu u saaqa waxbaa ii susumayo saqar bay baxayso saa dambe ma dheere saddex qayd baftaayo subeeciyadii dhalashiyo boqor baan ku saaraya sida salaamidlaahawd xaragaad ku suganta waa garta siciid saalax axmedna halkaasuu gaariye isaguna kala fadgudi waan gartay intaa markii laysidhi waxaa jira bahashu laba dhinac weeye oo ragna waa rag iska madax bannaan ma ragga qaar dhaliilaya ama dhexdhexaada ama cid la safan ragna waa rag isu xidhanoo matalan hadraawi iyo cabdiqays ka bilaabay oo kale labadan iminka oo iyaguna mar dambe isku soo noqon doono isla jabi doono iyagu way isu xidhan yihiin iyana waan gartay halkaa markay maraysay waxaa soo galay nin kale oo la yidhaahdo maxamed cabdillaahi riiraash waa iminka kusugan magaalada jabuuti waktigaa wuxuu joogay riiraash hargeysa oo macallinka ah soo galay heesta uu u bixiyey sargooyi riiraash isaga waxaad moodaa inuu hadraawi iyo cabdiqays midba wax ku dhaliilayo xagga dambana gaariye iyo siciid saalax kaga dacaadhabayo iyagana meel midba wax ku dhaliilayo wuxuu yidhi riiraashna saxarlaan arkoo waxay tidhi saaxiib adaa garan ragga siinka curiyeen ninba sawdka dhiibtee waxaad siin salaan guud safka wada akhyaarta ah kolka xiga sidaan ahay sadarkeeda mariyo usug waxaan ku noolahay siday qaar u sheegeen salfudaydu maan dhalan cunta sixirtay maanihi samir lidashanada nimay soori qaadaa waa seefi qaadaya soomaali weydii maan odhan sabool nacay waxaan idhi sad quudheed iyo soor nacaybeed subax aan ku gaadhsiin saddex magac ilaahay 30 horaan ka joogsaday sabadaa jabuutiya ninka sare aad seegtana maan saarin araggee hay saafin meel kale ninka soo socdana waxaad odhan weli waan ku sugayaa samirkiina maan gabin walow sayma aan galay iga silaahay sahankii barbaa yimi sidaad sheegtay nagu diid wuu saloogay qaybi qalanka iyo saxeexii wuxuu yidhi sabaan hore dadku wuu sinaan jiray wax saboola ma lahayn saranseera muu jirin waxa saad la keenana ninna saayid inuu helo uma sacbatumanay surmiga iyo abaaraha innagaa samaynaye xagga sare kama iman
hadal lama sudhnaado oo lama sariige in wax loo sargooyaa waa xaggay u socota samaayaha rag kale qoray ima gelisa sooyaan surunsuurta madarka iyo dhirta daalasiman baa u maraysa surimada iyo suryadoo idil aniguna sidaan qabo hadba waxaan sad gaadhsiin ubadkiyo saboolkoo saxalkoo aan reebaa waa xaggay u socota suurtiyo qiyaamaha ninka soo dhaweeyow ninka samayda qiijee kii siniinta loo waday dadka kale u saafow ninka yidhi sidii hore safka weli kamuu tegin duqasaba wanaag yaal seefaha u haystee inay saawir tahay garo ma mid eega salalaa kolkii hore sahwiyey baa sina loo wadaynba ma mid sidig irmaaneyd hawd sare ku maalo sabadiisa qaar kale gaajadu ku solataa ku su'aalay adigee sidee baad ujeeddaa weligayba saakaa subax layga tiriyaa sunniyihii basaasaan subagii ku dhaashto saadaasha kaan qabin waan ka sacabasaydhe adigaaba saaxiib sarsaraayo maydkee waxba saar ha ii tumin gaariyu duraya dhinacna siciid saalax oo leeyahay seeftii maarta ku sheegay ka duraya xagga horena hadraawgidii saxarle yidhi hasaloogu qaybaha ayuu ka duraya uu leeyahay saankii wuu salugay qaybi cabdiqaysna ka duraya salfudayd ma dhala tiiraashna halkaa ayuu la maray intaasi markay dhacday waxaa soo galay isna nin kale oo la yidhaahdo yuusuf jaamac yuusuf canfar yuusuf wuxuu isagu saaran yahay cabdiqays waxaanu aaminsan yahay in jabuuti gobonnimadeeda iyo xorriyaddeeda laga hadlayo oo cabdiqaysna hor taagan yahay halkaas isagu aaminsan yahay riiraash qudhiisa saasaa ka muuqata yuusuf waxaan filayaa isaga laftiisa waqtigaa inuu xamar joogay wuxuu yidhi yuusufna iskii nin u sodcaalo sirba aan lahaynoo suufiyo wareer qaba sahankaba ayaa u diray ayaheeda saxarliya waxa ay ku sugan tahay yaa su'aalay qaysoo soo waray ayaa yidhi surmaseegta weeye sidaa taa ku dhaafo sanadkeennan maanta ah suxiska iyo heesaha saxarlaba ku tacalluqa waa muruqi laba suul nin kastaaba siduu rabo aqoontiisu siisana cabdow ha u sifaystee warka aan ku siiye anigu waaba sahaydaa sida saynla aaroo gaajooday sabanoo sabinaya baaqaan sida saynla aaroo gaajooday sabanoo sanqadhii baxaysiiyo sabinaya baaqaan hadba sara fadhiistaa hurda waan ka saahiday waxaa salalka igu riday aan la sirisirqaysnahay tira 800 kuna sadkii ay lahaayeen sulo laga maroorsaday laga seexan maayee surmigiyo suluftiyo abaartiyo surmigiyo haraadkiyo midhahoo la saydhoo lagu gaadho socodkiyo waxaan saatir tuugnaba markii ay samaatee sareedadu ay dhalatee seeftiyo bilaawaha galka aan ka siibnay suruf laga afuufee faraskana sitaac iyo heensaha la saaree susun loo dhaqaaqiyo la sugayo siigadu inay sare u duushaa ninka yadhi sal guurtaya saadaaladii iyo yidadiilasimadii labadiiba saydhee socodkiina gaabsadee sacabkii qarribaya malaa wuu sahwiyeeyo sahal bay ku dhaaftay mase oga aqoon liya halistuu sameeyey inuu nolol dad badan sigay waxsuu noola siman yahay sabigii carruurtii markay wada safaadeen silaanyadii mulac ku sargooyey leebka sirkaftiga jalba u riday duquntan sideedaba sarar loogu riday ciid sadbursiya moodina waxaan anigu soo siday cirkoo isaga la mariyey sumadeenna caanka ah samaydii ku joogtee xaqaa gacan sarreeye sina uma nagaanee safarkeenna kaaxiga siyo lawda hoosiyo xamarayda sare iyo markaan saylac soo furo diqil sii roggiisa iyo sanaageeda oboq iyo tojarrana ku soo simo kii yidhi hasubina iyo kii yidhi hasubinaba sida yeeli doona sidiisaba wankii weyn jeeraad sadqaysoo dhegta gawrac lala simo sare wax uma eego ma arkaayo samadee sideedii guyo hore sudunguuradeennii subaxaa wixii nool cidda socodka lagu tumo marka saxalku uu baxo balaan eegno sida taa ninkaasina halkaa ayuu isna la maray taasi markay dhacday waxa isa soo rogay cabdi aadan qays mar kale cabdi markan hadraawi la hadli maayo raggan dambe heesahoodii baa ugu tegay jabuutiyo wuxuu dareemay in muduci lagu yahayoo eedii oo dhan isaga loo xambaariyey oo laleeyahay wixii la doonayeyba cabdi qays baa hortaagan marka isagoo arrintaana ka gacan taaganaya raggan dambena u jawaabaya ayuu mar labaad ku soo galay ragna uu kala sifaynaya qaar isaga laftiisu aadanaya wuxuu leeyahay ragga baasha qarbiya waa nooca ragna wuxuu leeyahay iyagu si wanaagsan ay baasha u hadleen hadhow waxa ka muuqata raggu leeyahay si wanaagsan bay u hadleen inuu hadhow haddana eedayn doono wuxuu yidhi saaxiib hadraawow markaad saxar la tirisaan suuban kaaga celiyo sawdka aad ka tidhi iyo maqlaysa darrada adoo kugumaan saluugin adigu maad simbiidhin gaariya ma seegin ogow cali saleemaan isna si xun uma hadal waxsaan diiday saaxiib safka kula wadaagee siciid ugu horeeyaa murtidii sirgacaye waxa salalka kiciye ma la socotay riiraash surma seegtada u dhigay afqalloocna muu sugin
surinkaan marayno nin 9 jirayoo hadal siigay weeyo tiisi uma sarayse Soomaalida ma caayin wasraxaya Soomaalida ma caayire ninkii soo socdaan yiri dhulkeena Soomaaliyaha ka ima sokeeya dibba la isu soogay sadka qaada hawshan taladii ku siiyo saakana la taagna samir dhaway hadaan yiri waqtigaas irgacan baan sidoo yahay tilmaamay aniga maxaa day saarsan saadaashu man ka hadlay saboolkaan tilmaamay halka saxalku yaalana taam yala socota si leeyda waxa dilay socod baradka heestuba saaka ugu horeysay surinkii hadraawiye suryadan anigu maray suxul baa u aasane taam yala socota waa Suuriya maasadu sama lagu wadaagay sunninkii ku darayo aday sababi taade sida ma ogsoonti kuwa gabayga sirayo sixinu sheeg ma ogtiin sixir waa ka daranyo waa sida habkiinii waa saxarla sheekadu suuban iyo jacaylkiisi kala u rogati waa Suuriya maasadu sama lagu wadaago saqda dhaxaad u toostiyo saaco looga faashiyo sahan buu ku xidhan yahay kuwa gabayga sirayo sixinu sheeg ma ogtiin sixir waa ka daranyo waa sida habkiin abdi qaysna inta ayuu ku soo noqdo oo aad muddo inuu qolyahan dambe u jawaabayo suuna idriibiyo halka markay marayso waxa soo galay haddana rag kale iyaguna oo laba nin oo kale oo iyaguna iska madax banaano si leeydi ku soo biiray Ahmed Maxamed Leeyda soo galay oo isna waqtiga joogay la foole macallimiinta heesleeyado waa iga su'aal guud ayuu isaguna ku soo galay wuxuu yiri heesahan silsilada ama sadan sifaha badan su'aalaad kan dabayaal ragga soo diraw nabad marka xiga sakalihii lagu sirayay doqontee sabigana ka weyneed war miyaa saluugteen waa maxay sawaxankani kafta suuban weeye samow ha iska socotee helada salka u dhiga surmigiya abaarteer isaseega waxa dhigay Cabdo Seef la boodiye sidigtii hadraawiye Suuriyada la ceebsaday haye ya ruuxi saboolahi aanatee la siiyay sid ka dhalay ma deeqa saddex ariga reer leh saxsayd ma gaadha geedkii saro baxay sawir ma laga daa arigii sodonaha saka goys miyuu yahay sibiq loo dhaqaaqiyo hindi waas ma socodba geeli 9 sabaari ma daaqa saldhigeedu wuxuu yahay wayga su'aal guud oo marka dawladda af Soomaaliku baasha ku jiro saadaasha khayrka ah socotada wardoonka aninka siisan waayo kii saxar la guursaday ma sitaarad buu xidhan hadii warankii sooyaan loo doonay samaydii macalku salaandigan sursuruhu markuu dhaco isaga dagaal gali sadaqada iyo dhawrtadu soo dambaray miyay jiri haw doonta sarafka isqamu ka nabad galin goortu suldaaraysan bireer xuduudayn saligeedu wuxuu yahay wiga su'aal guud ruux arag wiga su'aal guud ruux aragu siimo indhuu ay sawaameen guruxyada siraad kale rabbi saan cad kaga xidhay ma socda habeenimo sanadaga gaalkii siday diintu leedahay eeba ma sujuuda waa eray su'aalahe saxariir ma nololba sixi waaye aniguye sakaraad ma raysta kala saari waaye sadaqade masiinba saban xumee haduu dhaco saan liima geeda saar lac ku yeelana saawir ma goysa ma su'aalo ma sareeyo aadmiga ma su'aalo ceebaha hadal saac ma buuxshee waxaan saa kale yahay wariyaan samaha laga tagin iyaday sidaa tahay ninka saxarla laga dhac yuusafihi dhig yaan si xal lagu karin yuusiisan qaybaha saamiga rag kale dhigay yuusaawasaaway waxa ay ku sugan tahay yuu eegan sumadiya laansaarka beenta ilaa waa sidrigame sayaan ku dhaxay saxarla iyo isaguna leeyahay isaguna wuxuu safkii hadraawiye saxarladii iyo arintii buu isaguna ku noqday daba socda محمد سعيد عثمان ويدار الله يرحمه اسمه ودنتي الله يرحمه ayaa soo galay wadaar adraawi sidoo uu sheegay wuxuu garaaci jiray siin leeyda sidoo garaacay inuu waardi aan ku dara bahashay balanayga geelba sibir gudan ayuu ku soo galay wuxuu yiri sanadahan adduunyadu way sayma badato siinay xogteedii iyo sanqaraha fiidnaan iyo waxa soo raglaayay susumaayay dhiigii waxa muruqa seedaha xabaduhu u saafeen ninka suurka tumayo ma waxaan ku sulin baa si leedu waxay tiri ninba soodin kale iyo halku saakay joogu seeraha ka horto rankiisa saaray adiguna siraade saxankaaga noo sheeg waayahay si leedu waxay tiri saxada roobka saakaba ku haysiyo waa saaca adduunyadu bala kugu simayso salaankay ku korisaa kula siiban doonee adiguna siraaday saxaydaada noo sheeg si leedu waxay tiri waxaan sugayay saxarlaay inaad gacanaysi soo sahlana umurana sunta wada afufnay mar hadaad saboolnici waa saban xumaaday sii daysay geenyada samireba weeye siileedu waxay tiri
samawada hadraawow ninka maanta salalee samir qaadan waayow waxay suuban leedahay halkan saaka joogaa waa saba ayaan liya guri sayrma weydoo rabbi ubax ka saaroo ninba meel ka seertee waa eray su'aalehe siinlaydu waxay tidhi bishu waa 9 waa sanad kaliileed waa sool abaar iyo saranseer gujiilaal waa sagal guhoor iyo surmi iyo haraad loo siigadii dalluuntaa samadiiba awdoo malaa waaba siganaye ee bowsidii run siinlaydu waxay tidhi xalay baan saqdii dhexe socotadii dhowaantibi sahan aanu kulanno inta saaka joogtaa tahay geelba sibir godan waan helay sirtoodoo waa dood sandahan iyo murtiyaan la suginoo ninba saabu geliyoo ka labaad ka saaree waxay suuban leedahay waa aayad sare oo waa silsilada naaroo waa samaydii muuse iyo xadhig lama sitaanoo ninka si xun u sheegaa kama samata baxayee ila soco waxgaradow waayahay siinlaydu waxay tidhi samawada hadraawow ruux jacayl sawaaboo caashaqusa kala maray inuu soorta kaa cuno ama socodka hidiyaa suuroobi maysee dhaaxaan samraayaad sirta dhaadi weydee nafsi meerta sugayaa sodonguuradiisii saaka loo walqalayaa waa sahayda aadmigu sama kugu qadariyaa ma haddaasa waxankiyo waan soo socdaa kow saxarlay ha fududaan cidi kugu sacabtumi haddaan saami kaa maqan seeftaadu kuu goyn ma baryaa rakaasiin geelaaga sula lumay siinlaydu waxay tidhi sidigtaa dhalaysee dadku wada sugaayana waa horay sadkeedii 3 laab u qaadoo wax kaloo ka salaglay ku sidaa calooshoo sida faalku leeyahay kollaysayn cad maahee allow sahal umuuraha siinlaydu waxay tidhi sacab xeel la'aaneed miyaa laga sanqadhiyaa 30 beri adoo qaday soor quur la'aaneed sahal looma qaato guul laguma seegee intay xaaja sidan tahay ama qoofal sudan yahay seetadu ku xidhan tahay tala haysa sidatoo mid ay tahay sariya caad ha la saari waaye hadal waan 3 mar waan gatay halkaasuu ku joojiyey ninka la yahdo weydaar waayahay halkaa markay maraysay waxaa haddana mar labaad isku soo rogaal celiyey maxamed xaashi dhamac gaariye oo markii hore iska dhexdhexaad buu ahaaye iyo wardoone imika ay siciid saalax isu muuqdeen siciid saalax la hadlaya kana cararaya inaanu cabdiqays shaqo ku lahayn oo cabdiqays de waa ninkaa eedaysanoo ciddii la soo safaadsaa dee waa dambiilayaal markaa wuxuu le waa anigu cabdiqays nin shaqo ku leh ma yihi haa sida taal ayuu markana soo tiri wuxuu yidhi sabadii tog dheer baan kaa soo salaamee jaallahay siciidow ina saalaxow nabad marka xiga safkeennii waxa ay ku sugayiin iga sii war buuxo maxay saaka joogaan marka xiga silsiladii siin laydi dheerayd waa taan sargooyee saabka aan u geliyey sodoh weeye idhiye mar haddaad ka saartoo maryihii ka siibtay soobir tahay islaantii wax kalaa ka salag leh ina saalaxow nabad sida taal waxay tidhi heestaydu waa siin waa sagal arooriyaad waa sahan maqnaayoo beeshu ay sugayso waa sawd nin weynoo sahwi aan ku imanoo sahay weeye dooroo dusha lagu sitaayoo sidaad mooday maahe ina saalaxow nabad sida taal waxay tidhi heestaydu waa siin waxa saxay abwaanoo sayidka u abtiriyo waa sadkii qabaanoo waa tulud la soofshoo raagaa salaaxoo sifo waxay ku leedahay murtidii salaanoo sidaad mooday maahe ina saalaxow nabad sida taal waxay tidhi sangar ruux la loolaa surmi kama fogaadee samawada hadraa waa six ilaahi gaadii af soomaaligaygaa malaa kaa sarreeye af soomaaligaygaa malaa kaa sarreeye sadarkaan ka heesiyo af soomaaligaygaa malaa kaa sarreeyo maansada sal iyo baar maad helin sirteedoo sadarkaan ka heesiyo sheekadaadu siday tahay waysa seegan yihiinoo jinnaa kuu sanqadhayo saan kuu garaaco igu kaa sallidayoo sawir baad run moodiyey ina saalaxow nabad sida taal waxay tidhi dadka kii sokeeya ama soor wadaagtaan surya looma qariyo sunta aad u qoshtaa surka lala galaayo kula siiban doontee ninkaad igu sidkaysee ila soo safaysiyo dembigaadi saartee siciid igu qiraysana kaa siisan maaye saaxib albaandhe sida taal waxay tidhi aduunbay saluugoo buuri la salooshee naf jacayl sawaaboo seetada ku giijo waxaan ahay siloono saxarliya danteedii kama seexan weliyoo darteed baan siciidow uga soomay oonto xeebaha sintoodaan saanadaydii dhigayoo jeeraan sal gaadhana furi maayo suunkee ina saalaxow nabad sida taal waxay tidhi salfudaydku qays buu saaxiib lu gooyey seeflabood inaad tahay caadigama saaree goortii sabeentii marti loo sadqeeyey sanadkaynu joognaa waa 9 guuree taarikhda socotaama midaan ku solinba sida taal waxay tidhi duqa saba wanaag yaal soorkiisa maar iyo hadday saawir kula tahay way kaasi sibatee saamigaad lahayd iyo nin sadkaagii qaatoo kaa raba siyaadana seeftaada mooye inaanay sabaaliya saadaashu celinayn sidaa ma ogsoonta
sida taal waxay tidhi candhasaabka dararee maraq lagu sakalinay ibtu siiban tahay dadku uu siman yahay sibraarada ka buuxsaday haddii uu war sugan yahay waa sareede eebe ina salaxuna sida taal waxay tidhi tabtii inaysan weynaan xaajada garsooro labadeennii saaxiib waan kala xaq siiyey aduunba iska salaaloo faallada sirgacayo hadalkayga saafnaa soofdaran habowshay waxbaa kuu susumayo sidaadii ma tihid oo malaa waba tigatay soofiyaasha weydii saarkiya dabashaba iyagaa saneeye sidan kuwa lagu qaatay malaa waxbaa kugu soo kordhaya waa gartay ya aye sida la garan karo ama la filayaba Siciid Saalax ayaa isaguna soo noqday isagoo markaa gaariyeysna u jawaabaya saddexo maasada la yiraahdo ayuu ku soo galay wuxuu yidhi saaxiibka weyne soo diray salaantow anigiyo safkeennii ladnaan baan ku suganaa bulshadii sinaydana sagootiyaysiiyo idinkuna sideetiin maxaasaa ka joogtaan dabadeedna saaxiib sidigtii garsoore sawdkeedu toosnaa waadigii saluugay saldhigeedii diiday saddexadan wardoonka ah saddex qodob lamaana ah mid waliba saddexan yahay sagaalkaba guddoomo wax ku qaada saaxiib waad soo taagan tahay wax ku qaada saaxiib sinta hore hal koobaad sida uu dadka yidhi saaxiibkay rumaada uu seeraha jacaylka uu ma og tahay sokeeyo sabadii la fooloo cilmigiisu sumayiyo saldhigii aftahamada siinlayda curiye safka haatan joogiya sanku neeflo oo idil markii aan su'aalaba waxay igu salaameen saddex oga tusaalood sawdkoodu wuxuu yahay dabad joog sakaaradu saalada ha aastee dabad joog sakaaradu saalada ha tuurtee sida ay isleedahay carraday dul saartiyo siigadu ma qarisaa saranseer gujiilaal cirkoo siin la mariyey sagal iyo daruur iyo caadaanu saarayn siraadkeeda qoraxduna sina uma qarsoomee sabasabdhadaa baxaysiiyo damal saar ku yaaliyo suuradkii bacaadkaan soo laaci waayini sababtuna waxay tahay sahalow ujeeddada labadaadii seefood sina uma gudboono anigu se sidaa tidhi saxarliya danteedii si qudhaan u eegoo sangaabtaan ka qaatay sangalaba rogaalow hambalyaan ku siiyey hal labaad su'aali meel baad ka seegtay saaxiibkay rumaadow sargooyaha aqoontow soo urursho beelow ma og tahay sokeeyo sakatiga wixii dhigay dadku ay ku salaleen haddii aan sarxaasana suryo qoolan moodo haddii aan balsaafana salaxaf kudhag weeye mar labaadaan saab iyo shaqalaw sameeye sida taal hadday tidhi sida turubka baandhe saaxiib balyeeloo saddex maan fireeyo kii ugu sarreeyo sideedlaha karaawila su'aal lama filaan iyo sumadiisu waxay tahay xaggee buu ku sugan yahay muxuu soo sidaa hebel iyo sarakacaagi dheemantana sideedlaha sawir laga cabsoodiyo saymaa dulyaal saddexlaha hadhiinka ah sirjigiisu wuxuu yahay sabeen gorod madowoo dogob lagu solaayo siniintii ka duushaa samadiiba qarisay soo noqoshadaadii ama labasadlayntii may sugin turxaantoo sirta maxamed xaashow sare looma qaadee nacabkii wax kaa sida suba salaax iyo sasabaad ku daydaa marka uu ku seexday limintaysa siiyaa saanada la qaataa seedaha la gooyaa jacaylkaa ku sirayoo sanbabada ku shiilo inkastuu salkaa yahay seetada ha goynoo miyirka keenada ha saydhinoo miyirkana ha siibanoo jibayay ku suuqine sidii ayuu falay samirkana la'aantii xaajadu ma sugantay xaalkii sidan u weyn deg deg looma saafee maamo horaadada la saaboo dambeedadana seetiya maraq lagu sakalayoo ku sifowday darartana inay tahay waraan sugay soo jeed habeenoo saqda dhexe habeenkii cirka sare u eego laxohoo siraatiya diga joogahoo siman inay diri sagaaliya tahay xilli samuulada sidaa ma ogsoontahay adigoo aan sakatiin aan kuma su'aalay gaariyow sabeeni mar haddaad sadqayso saman hore ra kula cunay suunka iyo bilaawo habal maxaad u sidata ila adigan yidhi dee sabeyntii bere horaa rag loo sadqaya martiya saddexaduna waxay tidhi sidaa looma jiibshee saaxiibkay rumaadow siraadkii tog dheere samsamkeeda jiidee soo daayey maaxdow murtidana sameeyow sinlida ma og tahay 18 bay saddexaadu ku joogtaa sugaanta meel buu Cumar uga sameeyo Samow Cabdikariim baa siinadeeyadan koo socotada u qaybsho siniin iyo siniin bay wali sii jiraysaa waa Cabdikariim jiro codadka sameyn jiray wali sii jiraysaa xeelo weeye sixin loo sati lagu shaqaayo ninka subagaad si jirsan u tiriya kama sabata baxaye safka haatan joogay sifaheeda dhuuxiye abwaanada sameeyay dhac kasta ay ku siman tahay sanadaha dambe taa saaxiib xukumaye hadii aad sirqowdana lama toobad seege waa saddex halgalaya sirjiga ka adkeen sawir lama amaanay si kastaba u roonow suugaanta xeer baa salka loogu joojo carra lagu ma saacsho suyac lagu ma beero sirsir kuma tisqaado ay lagu ma seere waxaan sidan u leeyahay aday kaasi sibatee murtidii salaan iyo sahaydii ugaaskiyo sayidkii darwiishkii mid ay wali salaaxeen cali dhuux sifeeyo ina mireesar gooyo timi cadasa waxankii ama saxay hadraawo ina saalax ku haboon sida uu galaal yiri sida taal codkeedani uma suurada eke garta ina san weynana
sakal baad ku tuurtoo saansaamihiisii salsalaabi weydoo halqabsiga sibiidha la xaal baan ka siiyey soomaali baa tidhi ninka sidan u faana waa camal riseeyoon sahlow isnuugtee sadarkayga maansada waadigii isuushee saar igu dabacayee jinni igu sabaxayee saxal igu gumhaamee salligii watiinkee suufiga bulaalow walbahaar ha sidanoo maansada ha suuqinoo iyo ka hasaarine adiguna balsaame waan garta siciidna halkaa ayuu isaguna ayuu dhigay ka onkooday ninkastoo maansadii hore Siciid Saalax iyo taniba aad moodo inay heesaha intooda kale ay ka dhaadheer yihiin waxa ku soo noqday Cali Saleeman biti oo markan saaran markii hore haduu dhaxdhaxaad iyo wardoona imka gaariyu saaray waan garta dhinac waxaad moodaa inuu Cabdiqays kala yar socdo dhinacna wuxuu kala socdaa Siciid Saalax iyo Cabdiqaysna way hayaan oo saaxiiba waa markaad bahasha arkayso inay marba dhinac waji dhigayso waliba dhinaciisa gaashaysa ma garta Siciid Cali Saleeman isaguna wuxuu soo bixiyay sida taa wuxuu yiri gaariyo salaantii sawdkii macaana aniga iyo safkeeni nagu soo sinaato waxa siday dabaylaha waa soona celinay xagga iyaga sareediye waa siir mawdeeso lama dareen la saqbarkii habeenimo soo kolaad murqaanayd sida dhidar ku sarakacay onkod iyo sanqara roob adoo salalay galeen dhexe inaad goysay seetada soo gaar warkaagii xamar suuqyadeeda sida taal gardarana surma seegta heesaha dadku wada saluugo sare kama filanay ninka dhaartay shalay subax saakana calaalay adaa sax u yaqaano bari safar u raacay saaxiibad raawo gaariyo sideeyahay ma dhamaasada halkii soo kan dabinka soohdee murtidii suriyay qoolka suray naftiisii sida taal gardarana sunta khaayin qoosha waligiiba sababtoo sixir uu ka daran yahay si wuxuu tilmaamay Cabdi Muuse Alfududaan ee saxiya maanbuu isaga salsal ahayn sakatigu ma fiicne sirta wuu hulaabo ku soo diray dhambaalkee sirta wuu hulaabo ninba sidoo u qaato ku soo diray dhambaalkee waa taad la safatay xiniin lagu masaraye waa kay cagaari yar diidayay in Cabdiqays la socdo waa taad la safatay xiniin lagu masaraye Siciid ha iska eedayn wuu sugay jawaabtii saaxiib shaandhe sida taal gardarana diirta saaca maraysiya cayr soogan hawdiyo waxaad saadinaysana rabbi nooga sahliyo balanama simbiidini sagal baanu maala iimaansad weeye kii subaga daadsow masangaa guraata salu joogi weydaya ninka soo socdana dhowr wuxuu soo sidana arag saadaala wacan buu rabbigiisu su'aashay Soomaalidana heed kulle seegi mayse sida ma ogsoonta sida taal gardarana heestaada siinka adiguba sida tiri sodohan mar layniyo haday soo birtaa iyo sodoh qaawaniya tahay ina saalax mu furan yana rabto kula siqin sibiq hadalku ka tagin raaga iyo salaan iyo sayidkii darwiishkii sulamuudku aw dilay goormay salaaxeen af Soomaaligaaguna cidna kama sareeyo dadku baad la simanta waraan ku siiye sida taal isdhaafto dhakhtar saari waayo sancayn waa doctorku subana hadraawna siishu aysan maayo hadal soofu weeye qabriyada siraatiyo bal saacada dinkii malaga siiradii baa u jeedaa gasiiradii u jeeda waxa moodaa Siciid baynu kaga daran yahay Cali Saleeman gaariye sidoo ula soo hadlay sida muuqata qadarka yar ee ka hadhay cajaladani ma aha mid aynu ku dhameystiri karayno ama inoo wada qaadaya qaybaha inooga hadhay silsiladan Siinley waxa lama huraana in loo gudbo cajalada labaad ee taxanahan Siinleyda sida awgeed la soco cajalada labaad ee Siinley